الدين النصيحة دين تبا ونصيحة يعني الدين توا دنعية بدنتهي لكن وحلت المام يا سيدي الحج عرفة نبي محمد حجكم بوا عرفه حجكم دول بدن والله مرابو ليه لكن عرفه waxay kamid tahay kuwa ugu muhiimsan ee arkaanta hadaan lala imanin aanay wax kale asaxaynin laakiin xajku carafa waa ka badan yahay laakiin muhiimadeeda in la tilmaamo waxa nabigu yiri al-hajj arafa xajba waa arafo sidoo kale ayaa xadiidkan imaamu muslim warinaya nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ad-diin nasiiha diintu waa nasiiha uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dabeetana waxay saxaabadii weydiiyeen qulna liman diintu ilaahi rasuulkiisiyo yay nasiiha u tahay diintu yay nasiiha u tahay nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay lillahi wa likitaabihi wa lirasuulihi wa li'a'immati almuslimiina wa li'aamatihim shan shay buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam saddexna waasi labana waasi saddexda hore ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa ilaahi waxba inoogama baahna laakiin nasiixada halkan waxa looga dan leeyahay waa inaynu ilaahi subxaanahu wa tacaala rumayno waa inaan cidna ugu shariig yeelin oo ka tagna asmaadiisa inaynu ilxaadinno oo sifaadkiisa wanaagsan oo dhan ku sheegno oo naqaa'is iyo xumo oo dhan ka reebno oo taaca la nimaadno oo macaasidiisa ka durugno oo dartii wax u jeclaanno oo dartii wax u nacno يعني waxaasoo dhami waxay soo hoosgalayaan an-nasiihatu lillah inaynu cibaadada u khaalis yeelo wax kasta oo ina faray yeelo waxay soo hoosgalayaan nasiihada ah inaynu ilaahi subxaanahu wa tacaala lillahi wa likitaabihi wa lirasuulihi nawasileek inaynu kitaabka rumayno oo raacno wuxuu ina farayo aakhiriya adduunba isaga lagu liibaanayaa si toosa ugu dhaqanno rasuulkiisuna waa sidaas leeyahay وأن وحي لم يديهن نصوص تكلا إلهي إلهي إن تنصروا الله إلهي نوه لسان وكلا أما رسولك وهي لسان أما كتابك وهي لسان هي الكئية نصيحة أي واحد وده بمعنى قرى أي وضع التلمام يا مركي حق الله يا حق رسولك يا حق كتابك شوكته وحق له الله التلمام النبي عليه الصلاة والسلام تلمام ولأئمة المسلمين وعامتهم يا الله نصيحين يا كلا مسلمين تا ما ملكوده عده هجانك مسلم كوهيسا إن ير هجامينيو إن بدنها هجامينيو إن كسي بدنها هجامينيو هجان ودن إمامك مساعد كان باين تكية وإمام نوح وين هجامية إلهي حق يسوينه هجامية ربه يسكن هرتاجا ينو بريا نصيح ينقوله وضيبا قبيل هجامية أبا غير هجامية قبل بان والكيه هجامية مدحوينا ودن هجامية ومضى دنبو هجامية عالم بو يودتك دينو شيء هو هجامية هجان كاسنوع ودونا بها هذا أئمة المسلمين إيانا النصيحة يوت وهو محي وإن خير كالله شيء وناقنا لغو أطيعه لا لطليه وحي وناقا الله تلمامه وحي حما الله قريبه وحي خير ودن الله ميرينا ويا نبي عليه الصلاة والسلام مركز وحده ولي عامتهم هي عامة المسلمين تودن إيجانا وين لو نصيحة ولذلك أيها الأحبة قصة النملة وحي شيء هل قرآن يا والنصيحة سينيسا